markaad maqasho Kuuriyada Koonfureed waxa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo dhacaan shirkadaha waaweyn sida Samsung iyo Hyundai, baabuurta casriga ah, tiknoolajiyada iyo magaalooyinka waaweyn ee cajiibka ama waxa laga yaabaa inay taqaanid Kuuriyada Koonfureed sababtoo ah filimada iyo heesaha caan ka noqday ee K-pop-ka. laakiin su'aasha muhiimka waxa ay tahay sidee ay Kuuriyada Koonfureed ku gaadhay halka ay maanta taagan tahay, sidee dal u dagaal burburiyay oo dadkiisu fakhriga gaajo la tacaalayeen uu muddo kooban gudaheed uga mid noqday dalalka ugu horumarsan dunida. maanta waxaan barnaamijkeena ku lafaguraynaa taariikhda Kuuriyada Koonfureed, dagaalkii kala qaybiyay labada Kuuriya, mucjisada dhaqaale ee dalkaasi sameeyay iyo sababta ay Kuuriyada Koonfureed maanta dunida uga tahay dal muhiim ah. Kuuriyada Koonfureed oo magaceeda rasmiga yahay Jamhuuriyadda Kuuriya waxay dhacdaa bariga Aasiya. waxay ku taalaa qaybta koonfureed ee jasiiradda Kuuriya, halka dhinaca waqooyi uu kaga yaalo dalka Kuuriyada Waqooyi. dhinaca bari waxa kaga beegan Jabaan, xagga galbeedna waxa ka saaran Shiinaha. caasimadda dalku waa Seoul oo ah magaalo aad u ballaaran oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Aasiya. Kuuriyada Koonfureed waxa maanta ku nool in ka badan 51 milyan oo qof. dhaqaalaha Kuuriyada Koonfureed wuxuu ka mid yahay kuwa ugu xooggan dunida, laakiin xaaladda maanta ay Kuuriya ku jirtaa maaha mid ku timi gacmo laaban, balse waa natiijada dadaal dheer iyo samir joogto ah. si aynu u fahanno si ay halkan ku timid waa inaynu dib ugu noqonnaa taariikhda. dhulka Kuuriya waxa uu leeyahay taariikh aad u dheer. boqortooyin kala duwan ayaa qarniyo badan ka talinayay dhulka Kuuriya, waxaana ka mid ah boqortooyadii Goryeo, Beijka iyo Zili. muddo dheer dalka Kuuriya wuxuu lahaa dhaqan, luqad iyo aqoonsi ay wadaagaan, laakiin bilowgii qarnigii 20aad ayay xaaladdu si weyn isu beddeshay. sanadkii 1910 Jabaan ayaa si rasmi ah ula wareegtay gacanka Kuuriya, waxaanay Kuuriya noqotay dhul ay Jabaan gumaysato. muddo ku dhow 35 sano ayay Kuuriya hoos imanaysay xukunkii Jabaan, laakiin markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu sanadkii 1945 Jabaan ayaga laga saaray Kuuriya. halkaas ayayse ka bilaamatay dhibaato kale. markii Jabaan laga saaray Kuuriya, dalka waxa loo qaybiyay laba qaybood. qaybta waqooyi waxa gacanta ku dhigay midowgii Sofiyeeti, halka qaybta koonfureed ay gacanta ku dhigeen Mareykanka iyo xulafadiisu. kala qaybsanaantaas oo markii hore loo arkayay inay tahay arrin ku meel gaar ah, waxay ugu dambeyn isu beddeshay kala qaybsanaan musiibo siyaasadeed ah oo aan la filahaynin. sanadkii 1948 waxa la sameeyay laba dawladood. koonfurta waxa laga dhisay Jamhuuriyadda Kuuriya, halka waqooyiga laga dhisay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee dadka Kuuriya oo aynu maanta u naqaano Kuuriyada Waqooyi. labada dhinac waxay sheeganayeen inay yihiin dawladaha matalaya Kuuriya oo dhan. sanadkii 1950 ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa u gudbay dhinaca Kuuriyada Koonfureed, waxaana qarxay dagaalkii Kuuriya. dagaalku wuxuu noqday mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ay la kala safnaayeen qudihii waaweynaa ee Warsaw iyo NATO ee xilligii dagaalkii qaboobaa. Kuuriyada Waqooyi waxa taageerayay midowgii Sofiyeeti iyo Shiinaha, halka Kuuriyada Koonfureed ay taageerayeen Mareykanka iyo ciidamo ka socda dalal kale oo hoos yimaada qaramada midoobay. muddo 3 sano ku dhow ayuu dagaalku socday. magaalooyin badan ayaa burburay, malaayiin qofna waa ay ku dhinteen, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen. labada dhinacba waxa gaadhay khasaare aad u weyn. ugu dambeyn 27 Julaay 1953 waxa la kala saxday heshiis xabad joojin ah, laakiin xaqiiqadu waxay tahay dagaalku si rasmi ah uma joogsan, balse xabad joojintu waxay joojisay dagaaladii waaweynaa. waxaana la sameeyay aag loo yaqaano DMZ oo kala qaybinaya labada Kuuriya. markii dagaalku dhammaaday, Kuuriyada Koonfureed waxay dal burburay, dhaqaaluhuna ma ahayn mid xooggan, sidoo kale ma jirin warshado badan, kaabayaasha dhaqaaluna way baabi'een gebi ahaanba. shacabka dalkuna waxay ku noolaayeen duruufo dhaqaale iyo fakhri, laakiin waxa halkaa ka bilaabmay mid ka mid ah isbeddeladii ugu yaabka badnaa ee taariikhda casriga ah. dagaalkii kadib, dowladda Kuuriyada Koonfureed waxay bilowday inay si tartiib ah dib ugu dhistay dhaqaalaheeda. dowladdu waxay xoogga saartay waxbarashada, warshadaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhoofinta. waxa kale oo la daha qaaday shirkado waaweyn oo markii dambe noqday kuwa dunida oo dhan laga yaqaano sida Samsung, Hyundai, LG iyo SK. shirkadahani waxay door weyn ka qaateen kobaca dhaqaalaha dalka,
waxaa kaloo kuuriyada koonfureed si weyn u maalgelisay waxbarashada iyo tiknoolajiyadda. tani waxay keentay in dalka oo markii hore ahaa mid dhaqaale ahaan aad u liita uu si degdeg u kobco. maanta kuuriyada koonfureed waxay leedahay dhaqaale ku dhow 1.9 trilyan oo dollar marka loo eego xogta bangiga adduunka ee 2025. bangiga adduunku wuxuu kuuriyada koonfureed ku tilmaamay tusaale yaab leh oo dalka soo gudbay xaalad aad u hooseysa oo saboolnimo una gudbay dal dakhligiisu sarreeyo oo hodan ah. haddii aad maanta diiradda saarto Seoul, waxaad arkaysaa magaalo aad uga duwan sawirkii kuuriyada koonfureed ee xilligii dagaalka. waxaad arkaysaa tareenno dhulka hoostiisa mara, dhismayaal dhaadheer, waddooyin casri ah iyo tiknoolajiyad aad u horumarsan. laakiin waxa ugu weyn ee dalkaas ku faano waa warshadaha tiknoolajiyadda. Samsung waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee dunida ka shaqeeya qalabka elektarooniga iyo semiconductorska, waana sababta ay kuuriyada koonfureed ugu faanto shirkadda Samsung. kuuriyada koonfureed sidoo kale waxay caan ku tahay baabuurta, maraakiibta, birta iyo qalabka warshadaha. waxaa intaas dheer dhaqanka dalka oo dunida ku fiday. filimada Kuuriya, taxanayaasha TV-ga iyo miisiga K-pop ayaa malaayiin qof oo dunida ku nool soo jiitay. taasi waxay keentay in magaca kuuriyada koonfureed aanu ku koobnaan oo keliya dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda, balse uu noqday magac dhaqanka dunida saameyn weyn ku leh. inkasta oo kuuriyada koonfureed tahay dal aad u casri ah, haddana dadka Kuuriya waxay si weyn u ilaashadaan dhaqankooda. luuqadda rasmiga waa Kuuriyaan, waxaana dalka caan ka ah nidaam qoraal oo loo yaqaano Hangul. cuntada Kuuriya ayaa iyaduna dunida ku faaftay. mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan waa kimchi, oo ah khudaar la khamiiriyey oo si weyn looga isticmaalo dalkan. dhinaca kale, dadka Kuuriyaanka waxay caan ku yihiin dadaalka ay geliyaan waxbarashada. waxbarashadu waxay bulshada Kuuriya ku leedahay qiime aad u weyn, waxaana ardayda laga filaa dadaal badan. laakiin horumarka noocani wuxuu leeyahay dhinacyo kale oo caqabada ah, gaar ahaan cadaadiska waxbarashada, shaqada iyo hoos u dhaca tirada dhalmada.